wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka socodkan qunsuliyadda Sacuudiga ayaa magaalada Jidda ee dalkaasi ku soo dhaweeyay xujay Soomaaliyeed si loo hubiyo adeegyada loo qabanayo xujayda. wariyahayaga Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus ayaa warkan noo soo diray. iyadoo ay marayso heer gabagaba oo lihii qabanqaabada xajka ayaa waxaa haatan sii xoogaystay duulimaadyadii ka imaanayay dalka Soomaaliya oo ay la socdeen xujayda Soomaaliyeed ee sanadkan, iyadoo markii ay ka soo degaan garoonka diyuuradaha oo ay soo gaaraan gudaha dhismaha garoonka ayaa waxaa xujaydaasi halkaasi diyaar ugu ah howlwadeenada qunsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jidda iyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee u soo magacaabday inay adeegyo daryeel iyo khidmooyin kaleba u fidiyaan xujayda Soomaaliyeed. haddaba intaasi waxaa barbar socota iyadoo mas'uuliyiinta sare ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo qunsuliyadda guud ee Soomaaliya ee magaalada Jidda ay sii laabeen kormeeradii ay ku tagayeen garoonada diyuuradaha ee magaalada Jidda iyo magaalada barakeysan ee Madiina Al Munawwara, taasoo keentay in wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya Mudane Cusmaan Aadan Dhuubow iyo qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Jidda Mudane Ilyas Sheekh Cumar ay maanta mar labaad kormeer howleed ku tageen garoonka diyuuradaha ee magaalada Jidda si ay ula socdaan qaabka iyo heerka adeegyada loo fidinayo xujayda Soomaaliyeed. haddaba labadaasi mas'uul Mudane Cusmaan Aadan Dhuubow iyo Mudane Ilyas Sheekh Cumar ayaa waxaa inta ay ku sugnaayeen garoonka diyuuradaha ay qaar ka tirsan xujaydaasi timid ay qof uga xog wareysan safarkoodii laga soo bilaabo Soomaaliya ilaa ay ka soo gaaraan dalka Sacuudi Arabia, sida ay tahay shucuurtooda iyo guud ahaan waxyaabaha ay u baahan yihiin intaba, iyadoo muuqaalka iyo jawiga xujaydaasi uu aad u sareeyay awgeed isla markaana laga dareemi karo dhabanadooda farxad ballaaran ayaa cadeeyay in soo dhaweynta wacan ee lagu qaabilay iyo adeegyada hufan ay u fidiyeen howlwadeenada ka socota qunsuliyadda Soomaaliyeed iyo awqaafta iyo arrimaha diinta laga akhrisan karo inuu si dhab ah u fulay qorshihii iyo hadafkii dowladda Soomaaliya ee sanadkan kula wareegtay maamulka iyo maareynta howlaha xajka ee xujayda Soomaaliyeed. haddaba intaasi waxaa dheer in xujayda Soomaaliyeed ee sanadkan 2019 ay si weyn ugu soo qulqulayaan dalka Sacuudi Arabia si ay u gutaan rukunka xajka, iyadoo markii xujaydaasi ka soo degaan garoonka diyuuradaha ee dowladda Sacuudiga si weyn ugu fududeyso gelitaanka gudaha dalka Sacuudi Arabia alaabada ay sitaan iyo gaadiid, taasoo ka dambeysay iyadoo qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Jidda Mudane Ilyas Sheekh Cumar uu horey uga codsaday dowladda Sacuudiga gaar ahaan wasaaradda xajka, laanta socdaalka ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adaha kaleba sidii xujayda Soomaaliyeed loogu fududeyn lahaa howlahooda marka ay soo gaaraan garoonada diyuuradaha. Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus, warbaahinta qaranka Soomaaliya, SNTV, Saudi Arabia.